xaafadda Islii oo ay Soomaalidu sida weyn u degto ayaa maanta waxa ay gashay jawi qasan oo isugu jira banaanbaxyo baaritaano ciidan iyo dhac loo geystay dukaamo badan. guud ahaan wadooyinka waaweyn ee xaafadda Islii ayaa waxa isugu soo baxay Soomaali badan kuwaas oo sameynaya dibadbaxyo looga soo horjeedo dhac xalay loo geystay suuqa weyn ee xaafadda Islii. dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in la adkeeyo ammaanka xaafadda iyo in la soo qabto dadkii ka dambeeyay dhacii xalay loo geystay dukaamo badan oo ay Soomaali leeyihiin. markii ay soo bateen dibadbaxayaasha ayaa waxa lagu soo daadiyay xaafadda ciidamo isugu jira military iyo police kuwaas oo adkeynaya ammaanka goobaha ay ka dhacayeen banaanbaxyada oo ahaa kuwa nabadeed. tuugo ku hubeysan qoryo iyo bastoolado ayaa xalay dhac safmar ah u geystay dukaamo badan oo ay Soomaali leedahay kuwaas oo ka qaatay hanti aan la qiyaasi karin. waatan mid ka mid ah milkiilayaasha dukaamadii xalay la dhacay oo ka warbixinaysa qaabka loo dhacay iyo hantida laga qaatay. waxaa laga dhacay dukaanka lacagta le ilaa 800 oo kun Kenya money xalay tobanka saac camal 9 saac bay soo galeen 9 barkina way dhameysteen lacagta way la baxeen. Jina mimi naitwa Salim Deda ndo chairman wa vijana wa Islii na mmojawapo wa viongozi wa dini hapa. Na tatizo ni security. Saa 10 maduka yanaingiliwa saa 10 na wizi na AK47 na bunduki. Na hii nchi iko na serikali. Kwa hivyo tunaomba kama nyinyi watu wa journalists ambao watu wa vyombo vya habari xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuuji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii Yuusuf Xasan oo yimid goobtii ay dibadbaxayaashu ka dhacayeen ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay falkii xalay dhacay. waxauna xildhibaanku ballan qaaday in ammaanka la adkeyn doono maadaama xaafadan iyo suuqa ku yaalo ay dawladdu ka qaado canshuuraad badan. ganacsatada Islii oo dhan dukaamadooda way xidheen albaabada ay soo xidheen waa markii ugu horeysay taariikhda xaafadan sida laygu yiri oo dukaamada oo dhan la soo xiro sababtoo ana dhibka ka jira xaafadan oo aad u badatay tan ugu horeysa ay tahay xagga nabadgelyada tuugadii iyo burcadnimadii oo batay jidadkii burbursanaayo oo sii burburay roobab fara badan oo laxaad leh baa ka da'ay meel la mara ma jirto jidadkii xaafadda oo dhan urun badan baa xaafadda ku soo shubma qashinkii baa ku batay marka xaafadan waxa weeyaan xaafadaha ugu waaweyn xagga ganacsiga dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in tilaabo degdeg ah ay ka qaadaan oo ay wax ka qabtaan nabadgelyo la'aanta xaafadda ka jirto tan labaadna ay wax ka qabtaan dib u dhisidda jidadka xaafadda iyo qashin guridda xaafadda saddexda shayba waa saddex shay oo si degdeg ah wax in looga qabto u baahan baarlamaankana anigu intaan ku jiray dhowr jeer baan ka hadlay oo dawladda ka codsaday in si degdeg ah ay arrintaasi ugu howlgalaan. canshuur fara badan oo aan maskaxda galaynin baa xaafadan laga qaadaa iyadoo sidaa tahay xoolaha xaafadan yaalana ay aad u fara badan yihiin dawladdu way ka seexatay xagga nabadgelyada waxaanan ka codsanayaa wasaaradda nabadgelyada iyo nabad sugidda inay tilaabo degdeg ah arrintaasi ka qaadaan. tan kalena ganacsatada waxaan ku leeyahay si nabadgelyo oo fiican hawlihiina u wata. galinkii dambe maanta ayaa dib loo furay suuqa xaafadda Islii markii ay yaraadeen banaanbaxayaashu waxaana suuqan yahay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada caasimadda ee Nairobi. bilihii u dambeeyay waxaa soo badanayay tuugada dhaca u geysanaysa hantida Soomaalida ee leeyihiin ee xaafadda ku yaala mana jirto ilaa hadda talaabo cad oo ay ka qaaday dawladda wadankan Kenya. Ibrahim Kedowaale Bibo S24 TV Nairobi.